Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada daawadayaasha ku xiran kanaalkeena Tansheeg. Waxaan idin leeyahay idil ahaantiin Ramadaan Kariim. Maanta waxaynu ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan waqtigii Khulafaa ur-Raashidiin. Wuxuu dhintay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam maalin Isniin ah, 12 bishii saddexaad ee sanadkii 11 Hijriyada oo waafaqsan 7 Juulay sanadkii 632 miilaadiga. Wuxuuna ku dhintay gurigii xaaskiisa Caaisha ee magaalada Madiina isagoo ah 63 jir. Muhaajiriintii iyo Ansaartii waxay ku kulmeen beertii reer Bani Saacid si ay u doortaan hogaamiye maamula dowladda, kaasoo ilaalinaya arrimahooda diimeed. Way isku afgaran waayeen Muhaajiriintii iyo Ansaartii ka waxqnimo badan in loo dhiibo khilaafada. Gabagabadii kadib dood aad u dheer waxay isla garteen inuu khilaafada la wareego Abubakar, sababtoo ah boos weyn buu ku dhex lahaa muslimiinta dhexdooda. Shaqooyinka ugu horreeya oo uu qabtay Abubakar waxaa ka mid ahaa dagaaladii Xuruub Ridda oo uu kula dagaalamayay dad fara badan oo diintii ka baxay markii Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam dhintay. Sidoo kale Abubakar radiyallahu canhu wuxuu la dagaalamayay kuwii sheegtay nebinimada. Waa shaqsiyaal nafahooda ugu yeeray inay yihiin nebiyo kadib dhimashadii Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, waxaana ka mid ahaa Musalamatul Kadaab iyo Al-Aswad Al-Canasi. Wuxuu ahaa Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam mid diyaariyay ciidankii la dagaalamaya Ruumtii joogtay dhulka Shaam, iyagoo ciidankaas uu hogaamiye u ahaa Usaama bin Zayd. Laakiin nebigu intaa ka hor ayuu geeriyooday, waxaana dhammaystiray Abubakar radiyallahu canhu isagoo heegan geliyay ciidankii una diray Shaam. Weli waxaynu ka hadlaynaa waxqabadyadii uu ku dhaqaaqay Abubakar. Kadib markii uu la wareegay khilaafadii, wuxuu istaagay ururinta Qur'aanka Kariimka ah, isagoo ku ururiyay hal kitaab. Sababtoo ah waxaa dagaaladii Xuruub Ridda lagu laayay saxaabo badan oo Qur'aanka xafidsanaa. Waqtigaas jasiiradda Carabtu waxay ahayd mid u dhaxaysa laba quwadood oo waaweyn, Imraadoriyadii Furus oo ka xigtay bariga, Imraadoriyadii Ruum oo iyana ka xigtay galbeed. Waxaa bilaabmay furashooyin badan, waxaa diintii lagu faafiyay dibadda jasiiradda Carabta, waxaana la diray ciidan badan oo ka mid ahaayeen ciidankii Khaalid bin Waliid oo loo diray ciidankii Ubayda bin Jarraax oo loo diray Ximis, ciidankii Yaziid bin Abi Sufyaan oo loo diray Dimashq, ciidankii Sharxuweel bin Xasaan oo loo diray Urdun, ciidankii Cumar bin Caas oo loo diray iyana Qudus. Ciidankani waxay ku qaadeen dagaallo badan oo xidhiidha labada dhinac ee Faris iyo Ruum, waxaana ka mid ahaa dagaalkii Daatu Salaasil ee lagu qaaday Furus iyo dagaalkii Ajnaadiin ee lagu qaaday Ruum. Dagaaladani waxay keeneen in la qabsado dhul aad u ballaaran oo ka tirsan Ciraaq iyo Shaam. Waxaa xanuustay Abubakar, waxaana qabatay xumad aad u daran, wuxuuna khilaafada kula ballamay Cumar bin Khadaab. Kadib isaga marka uu dhinto, wuxuu dhintay 13 Hijriya, da'diisuna waxay ahayd 63 jir. Waxaa khilaafadii la wareegay Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu kadib dhimashada Abubakar sanadkii 13 Hijriyada. Cumar wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu waaweyn saxaabada, waxaana sii sheegay Abubakar si uu u noqdo khaliif isaga ka dambeeya. Waxaa dadaal la geliyay furashooyinkiisa iyo isballaarintii ciidanka ee ka baxsan jasiiradda Carabta, waxaana ballaadhay dowladdiisa oo noqotay Imraadoriyad xukunta jasiiradda Carabta, Ciraaq, Masar, dhulkii Faris iyo Shaam ay ku guda jiraan dhulkii barakeysnaa ee Qudus. Bariga waxaa ka socday dagaallo uu hogaaminayay Sacad bin Abi Waqaas, waana dagaalkii u dhexeeyay muslimiinta iyo Faris. Dagaalkaas oo keenay inay dhacdo Imraadoriyadii Farisiyiintu ayna qabsadaan muslimiintu dhulkii Faris. Galbeedka waxaa ka socday dagaalkii Yarmuuk ee hogaaminayay Khaalid bin Waliid, waana kii sababay in muslimiintu qabsadaan dhulkii Shaam kana saaraan Imraadoriyadii Ruum. Kadib waxay gacanta ku dhigeen magaaladii barakeysnayd ee Qudus. Kadib muslimiintu markay qabsadeen dhulkii Shaam, ciidankii Cumar bin Caas wuxuu u jihaystay Masar, taasoo ka mid ahayd qayb ka mid ah Imraadoriyadii Ruum. Kadibna wuxuu jihaystay Burqa. Cumar Khadaab wuxuu sameeyay diiwaankii dulmiilayaasha, wuxuuna ku caanbaxay waqtigiisii cadaalad. Sanadku markuu ahaa 18 Hijriyada, waxaa magaaladii Madiinatu Munawwara ka dhacay gaajo aad u daran, waxaana sanadka loo bixiyay sanadkii Dambaska. Sanadkii 13 Hijriyada waxaa la dilay Cumar bin Khadaab, waxaana dilay Abu Lu'lu al-Majuusi isagoo ku jira salaada da'diisuna wuxuuna khilaafada hayay 10 sano. Khilaafada waxaa la wareegay Cusmaan bin Cafaan. Waxaa 6 qof uu isagu ku jiro ka doortay Cumar bin Khadaab isagoo ka dhex saaray Cusmaan, sidaasna khaliif loogu doortay. Waqtigiisii wuxuu sameeyay ciidankii badda, waxayna awoodeen inay qabsadaan jasiiraddii Qubrus kana qabsadaan Imraadoriyadii Rooma. Iyagoo ay soo galeen diinta dad badan oo aan Carab ahayn ayaa waxaa qalad u akhriyeen Qur'aanka qaybo ka mid ah. Markaas ayaa mar labaad Cusmaan dib u ururiyay Qur'aankii, wuxuuna muslimiintu u sameeyay hal musxaf, wuxuuna ka sameeyay nuskhad uu ka soo qaaday gurigii Xafsa ee xaaskii Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Kadib nuskhooyinkii wuxuu u qaybiyay gobolladii si aan dadku isugu khilaafin akhrintiisa iyo micnihiisaba. Dhammaadka waqtigiisii waxaa ku dhex faaftay gobolladii fidno ay horkacayeen shakhsiyo ay ka mid yahay Cabdullaahi bin Saba, isagoo xumeynaya muuqaalka khaliifada kana faafinaya dacaayado ka soo horjeeda khilaafada, sababna uu uga dhigay inuu aad u jecel yahay reerka uu ka dhashay ee Bani Umayya. Waxaa
waxaa bilowday dhacdooyinkii fitnadii weyneed iyagoo ay soo baxeen qolo kasoo horjeeda siyaasadda barsaabadii xukumiya gobolada, sidoo kale kasoo horjeeda siyaasadihii khilaafada dhankii maaliyadda. Arrinkana wuxuu ku dhammaaday inay qolyihii qabsadeen magaalada Madiina ayna go'doomiyeen gurigii khaliifka, kadibna ay ku dhex direen Cusmaan bin Cafaan. Wuxuu dhintay sanadkii 35 Hijriyada. Khilaafadii waxaa la wareegay Cali bin Abi Taalib kadib dilkii Cusmaan bin Cafaan, iyadoo lagu jiray xaalad adag oo ka dhalatay fitnadii kusii faafisay gobolada. waxaa iskhilaafay khaliifkii Cali bin Abi Taalib iyo Mucaawiya bin Abi Sufyaan oo haystay Shaam. Arrin ku saabsan argoosiga ciidii dishay Cusmaan, Mucaawiyana waa diiday inuu u hoggaansamo khilaafada, soona wareejiyo gobolkii Shaam ka hor intaan laga argoosan ciidii dishay Cusmaan, maxaa yeelay Mucaawiya iyo Cusmaan waa isku reer Bani Umayya. Cali bin Abi Taalib waa ka raray caasimadii dowladiisa magaaladii Madiina, wuxuuna u raray magaaladii Kuufa ee Ciraaq, iyadoo ay sababtay cadaadis kaga imanaya xaaladda magaalada Madiina ay ku sugnayd ayna qabsadeen magaalada kuwii dilay Cusmaan. Muslimiintu waxay u qaybsameen 3 qaybood: 1. Kuwii raacay ra'yigii khaliifkii Cali bin Abi Taalib; 2. Kuwii raacay ra'yigii Mucaawiya bin Abi Sufyaan oo xukumayay Shaam; 3. Qolada saddexaad waxay hogaaminaysay Sayidda Caaisha, xaaskii Nabiga sallallahu calayhi wasallam, taasoo kasoo horjeesatay ra'yigii Cali bin Abi Taalib, waxaana ku raacay 2 ka mid ah kuwii ugu waaweynaa saxaabada oo kale ah Talxa bin Cubaydullah iyo Zubayr bin Cawaam. fitnadii waa sii hortay kadib dhacdada dagaalkii Aljamal, kaasoo u dhexeeyay garabkii Caaisha iyo khilaafadii Cali bin Abi Taalib. Kadib waxaa guuleystay Khaliif Cali, waxaana lagu dilay dagaalkaas labadii saxaabi ee Talxa iyo Zubayr. iyadoo ay sii socdeen dhacdooyinkii, waxaana kordhay loolankii u dhexeeyay Cali iyo Mucaawiya. waxaa dhacay dagaalkii Safeyn oo u dhexeeyay labadii dhinac. dagaalkan wuxuu ku dhammaaday heshiis, kadib waxaa soo ifbaxay ciidankii ka tirsanaa khilaafadii Cali oo kasoo horjeesta heshiiska ay wada galeen Cali iyo Mucaawiya, waana khawaarijtii, kuwaas oo akharkeena kaalin ku lahaa dilkii Cali bin Abi Taalib. kadib dilkii Cali bin Abi Taalib waxaa noqday khaliif wiilkiisii Xasan, laakiin wuxuu ka tanaasulay khilaafadii Mucaawiya bin Abi Sufyaan, isagoo jeclaystay inuusan daadan dhiiggii muslimiintu, laakiin ay tahay in khilaafada loo soo celiyo kadib dhimashada Mucaawiya. sanadkii 41 Hijriyada waxaa loo bixiyay sanadkii kulanka, sababtoo ah muslimiintu waxay isla qaateen hal khilaafo, waana Mucaawiya bin Abi Sufyaan. waxaana dhammaaday loolankii iyo fitnadii weyneed, waxaana mahadda iska lahaa wiilkii Cali iyo Xasan. waxaa dhintay Xasan bin Cali waqtigii Mucaawiya. Mucaawiyana wuxuu dhaxal suge ka dhigay wiilkiisa Yaziid inuu dhaxlo khilaafada, wuxuuna khilaafadii ka dhigay dhaxaltooyo ay leeyihiin reer Bani Umayya. sidaas ayuuna ku dhammaaday waqtigii Khulafaa ur-Raashidiin, taasoo jirtay muddo 30 sannadood ah, waxaana bilaabmay waqtigii dowladdii Umayyadeed. waad ku mahadsantahay daawashadaada mawduucan. waynoo mawduuca xiga. Ramadaan Kariim. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.